knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee reediyo kulmiye fadlan sabskribe saar janalkan arreer kalamaano ii warrama idinkaa war soo sheegi jiray warka isiiya kala wareeg fariya suul nin hadda yimid iyo nin hurda ka kacayba hadal waa uga daraanaa la yiri ya joog war waxaa la yiri hurda casir waayeelna waa ka xanaajisay ilmana waa ka hoyisay maxaa xilligan ku seexiye beenga sheegi waryaa waayeel korkiisa la yiri wada indho nin walba dhifoon mar uun buu dhaanka ka hurda war digtoor dalal ma laxan ku saare war nimayow sheekaan idiin hayaa maanta nin aad u faan badan oo deeqsi sheega jiray ayaa ri weyn oo buuran suuqa ka soo iibsaday ariyaa deeqsinimo iyo faan naxaa isku keenay dugsiga taga dad waxbarasho rabto nin buu u dhiibtoo yiri ii qalrida waana uu la dardaarmay wuxuu yidhi dhiigga rida ha iga daadin waxaan u rabaa wiil yaroo jadeeca qaba oo ma loogu qubaynaa madaxa waxaan u rabaa aabbahay oo indhaha loo fiiqay caloosha iyo labada keliyood xaaskayga umulahaan u rabaa majaha maraqa baan ka rabaa beryahan caloosha ay taagan buu yidhi maqaarka ii fidi oo qorraxda iigu war salliyaan ka dhiga rabaaye sambabka iyo beerka yaraha ha iga tuurin laba mukulaalooda ii joogtaan u rabaaye beerka ka hadal ma leh oo dhiigga casaa kugu yaraa dhakhtarku igu soo yidhi uuska ha iga khasaarin haddaan tolnahay beertaan u rabaa inaan ku bacrimiye hilibka intiisa kale oodkac iiga dhig jeeggaas iigu shub soori waxaan ilooba lafaha waa maraqii umushee ha loo tuudiyo deeqsigii markuu halkaa dardaarankii marsiinayo ninkii rida qalayay oo yaaban ayaa yidhi mudane waxaad ilowday rida codkeedii markaasuu yidhi aad baad u mahadsan tahay ii duub telefoonku inuu igu soo dhacaan rabaaye awal horaanku yidhi deeqsinimo iyo faarisku meel ma galaan adigu diida teleefonkiisa ha ugu soo dhace war waxaa fiicneed in ninkaas soomaali madax loogu dhigo wariya dabanka kunow soomaali weli jeewasaas wallankaqaybi jiri ma usub oo sagaara oo ka yidhaan dadka wax ka gaarsii jirni ri'daa ogaantoo weyn maxaas keligiis iskuugu koobayn ninkaas waxaa iiga ciil badan ninka yidhi deeqsigii rida qashaan sheekadiisa idiin haaya intuu deeqsi ka yaha ma u dhaho baqaylkii rida qashay warnimiyo ani warsiinhaaya gaalka aya oo damaneedun dhowalay ka dhiyaysin dheegaseeno bilaanti saqiira haayan guryaalka ka bahawaayan kufsa daraadis ya geega may baareen shimbirahaanu quudinayna anti erenga shimbiraha tiri kooben biyoojo i baadjowni meel saarane ereng warkuusiga ereed may hasuusiyey al-shabaab hata ka hor ma eray dameero afka birmayka gilii kor haquuqda dameero ilaalyaane ereng iyogo bani aadankana madaga kuwada jaraw warnimaya waxaa la yidhi dadka oo gurbood iyo duqow qoorta laga gooyo dameerna gargaar loo faliyo guuyo iyo xoolo waa gadahaan aragna iyo shay gaboodfala aryaadhaha cabashadi ayaantaan taagneeda ahayd ciidanka iyo mushaar la'aanta qaar ka mida shaqaalihii dawladdaa ku soo biirayaa la yidhi war 29 oo landeerna mushaarjo telefonjo dhiig hakaaroyta shaqaalaha rayidka arshar waxa ku waafaqday wax ma kala ogida kuwa kala jire kuwii ugu sareeyay shaqaalaha madaxtooyada ahay lama bilood mushaar ma qaadanaa la yidhi oo nin madaxtooyo jooga muxuu mushaar ku falaya aryaa madaxweynaha maahina waa shaqaalaha madaxaaga muqafeena abwaandoodan wuxuu yidhi xirfadaha asaageen watee xoogga lagu yeeshay rag allow maxaa naga xayiray waa xujiyayaab xoogga dis wax tari lahay maalin caddeeya maroon xamar imaan lahay war ciidankii la dhihi jiray maxaasley masurweellay gateen xalay ayaa waxay weerareen al-shabaab ku sugnaa masaajida caligaduud saldhigiina waa ka qabsanay dheheen qaar badanoo meydkooda garabsan bay dheheen dad masaakiina u xirxirayne waa ka sii daynay dheheen marka soomaalida oo dhan inay maxaasley noqotaan ku talin lahay anigu war masaajid caligaduud waa shabeellada dhexe daarusalaam oo shabeellada hoosaha xala cirka looga soo dhacay daarusalaam ayadana maxaasley miyaa u guurtaa tiriheen war maxaasley cirka kama soo dhacdeen naga dhigaysa warka kumaan doo surweelle sidataa ku soo daadataa la yidhi hadda waxay dhaheen waxaan meesha ku aragna cagtaan marina ciday doonaanba ha ahaadeen kumaanta la yiraaye ninka kaawen kaadkiisa ka dheeraaw ka baxaaga waaye araada war ma haysiine marka waafoobaa la magacaabaa la yidhi dadkiina waa ka bannaan baxaynaa la yidhi marka waxay dhaheen meelo waafoo yimid nabad lagu joogi maayo xabad intaba bilaabinaa iskiiga baxaynaa calool waxay ku bukata
laguma daaweeyo. war ra'iisul wasaare khayre waad ogeydeen sidii shalay Kismaayo loogu soo dhaweeyey haddana wuxuu ku jiraa kormeer xeriyihii ciidamada iyo xarumo maamulka waxaa intaa u dheer inuu helay magaalad nabadahu socod iyo orod aalamiita ku sameeyey axmed madoobe oo la khayreeyey oo farxaddii ka badatana shala markuu soo dhoweynayay ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre soo dhowow tushow tush lama celshaan xoo u dhihi waayo ra'iisul wasaaruhu warmaya wuxuu yidhi madaxweynaha qaldamin waxaan ahay ra'iisul wasaaraha qaranka ra'iisul wasaare khayre maamul goboleedyada dhan marka galmudug laga reebo waa tegey qaarkood 2 mar buu tegey qaar 3 mar buu tegey marka waxaan la yaabanahay galmudug xarashka uu hayo ra'iisul wasaaruhu waa maxay war tawankuna ra'iisul wasaare Sheekh Shaakir Basiir oo ra'iisul wasaare kale san fadaasan ma ay hoy ra'iisul wasaare khayre galmudug hadis aadi maayo dhuuso mareeb mastaga gaalkacay mastaga cadaab mastaga intii istagaay meel loogu toosaayo ma qabtiin ra'iisul wasaare galmudug ka tago macnaheedu wax waaye marka waa koraa maroodiya marjaxa maalin cadee marka waa koraa maroodiya marjaxa maalin cadee wallaahi hadduusan noo imaan itiraaf farraadsanayna sida Soomaaliland daartaas maahina wax la diinku nacay aryaadaha galmudug haday tagis rabto madaxweynaha tagay waliba dekada uu soo dhagax dhigay haddana Ugandha jooga magax waaga ma yaalaahe dhagax waa dhoobnaa dekadaana dhismaa loo rabay hadda ka hornima wuxuu idaacad ka dhageystay madaxweynaha ayaa wada dhagax dhigay markaas wuxuu yiri ilaa madaxweynuhu waa qaadicu dariiq aryaadaha waxa la yiri balaayada Soomaalida mugay ku badata meel kastaba ha joogtee rafaadkii markuu biiray waaye badan raagay risaasideedii noqdo loo ridaa jira abdullaw geega shiribkii hilmaantay gobiidi laakiin may ba ku tabtay adiguba waxaad ka tagtay sinde war wadadii hadda dhow ra'iisul wasaaruhu oo dhagax dhigay oo jawhar iyo afgoy kala aadaysay lama dhisin ayadaba war waa war moogtahay geeli waa la dhacay tii horaaba shabaab laga mari laayahay midda dambe xagee laga dhisaya war DB wal markii dalka laga mamnuucay sanadkii hor maanta kale ahayd madaxweynuhuna wali ma saxiixina la yiri dhiig haddaas naga batas naga socdaa dhiig kale marabneen namaatid aryaadaha madaxweynaha Puntland Somaliland hadday dagaalka joojin wallaahi waa eedeeyo yiri war madaxweynaha Somaliland aqoonsi imaaraadka ka raadinayay maxaa gadaashiisa looga hanjabaya bawa tukaraqba noo ballama war kusimaha madaxweyne farmaajo waxa ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad maantuna kormeer wasaaradda gaashaandhigga war inoo isku dago haytay madaxweynaha badagaay oo wareerka badada anigu waxaan iri kuwa ciidayda iibinaya calow la doonaya ana sirtay tuugada noo calaamadane asiskan ku dhaartay dib ay ka cabi doonaan aamin aryaa dib ka cabayo adiga kaaga liid war xishoo iraala tahay calow wasaad badnadiina wabi calow keen mihatiin aryaa had loogu qararaysin horta dawladda Nabi Ahmed ma hukumo talada Allah idin toosiye